kii bucaad la oran jiray sanadkii 11aad ayaa 6 nin baa ka soo safray oo runtii kamida reer Madiina lixdaas iyagu si khaas ah runtii u soo safreen waxa kamida As'ad bin Surara waxa kamida Auf bin Haris bin Rufaa'a waxa kamida Rafi' bin Malik bin Ajlan Qudbah bin Amir Aqbah bin Amir iyo Jabir bin Abdullah bin Ri'ab lixdan nin oo runtii Aws bay ka wada tirsanayeen walidaalka waxa way Aws iyo Khasraj way kala badnaayeen Khasraj baa ka yara awood badnayd oo runtii Sa'ad bin Mu'adh uu hogaaminay qoladana Sa'ad bin Ubaada ayaa hogaamin jiray magaaladii runtii ma ka yimaadeen dabeeta rasuulku kaleey salaatu wasalaam ayaa runtii arintii maqlay nabigu kaleey salaatu wasalaam uu tagay dacwadii runtii uu bandhigay waxaana ahayd geedkii ugu horeeyay ee unkama ee rasuulku kaleey salaatu wasalaam magaaladii Madiina oo diintu ay ku hana qaaday ka unkama ayuu ahaa halkii buu nabigu kaleey salaatu wasalaam kula hadlay dabeeta waxa yaa rasuulallah tolkayaanu ka nimid waxaanu u nimid baba yiraahdeen inaanu hub iyo ciidan iyo lacag waxaanu heli karno waayo waxaanu istileynaa Khasraj oo nagana tira badan walidaalka ilaahay waxaanu ka baryeynaa inuu kaaga dhigo faraj dadkayagii oo runtii Aws iyo Khasraj yaani waa sidan aynu Quraysh ku sheegayno Quraysh oo dhani waxa ay istileysay imaka kuwanay rasuulka ishayeen oo dhan oo reer Bani Makhsum ay kamideen oo reer Bani Abdullah waa odayga shanaad حتى كون رسولك النبي عليه الصلاة والسلام قبائل كبدنا هاي لا دقالمي قريش ودن ندى وضيق الطبنات عائلة كليه ولذلك وحوي ريم مدينة نسدا سلا أو سي خسرج عائلة كليه أي هاي لكن إن بدن يهودا يجد تحت جنيد رنتي تضحان ضد ونكسب يا هاي لكن يهودا أي إسكودري شرت وحلا اللحدة وداسي رنتي مالنتاسي النبي عليه الصلاة والسلام وحلقاتين إسلام لمدي dabeeta sidii ay ku noqdeen waa sanadkii 11aad warkii bay magaalada Madiina oo dhan gaarsiiyeen rasuulku kaleey salaatu wasalaam sanadka 11aad bishii Shawaal waxa uu guursaday Aisha bint Abi Bakr bint Abi Quhafa Aisha runtii Abu Bakr oo dhalay baa nabiga kaleey salaatu wasalaam la siiyay oo ficlan nabiga kaleey salaatu wasalaam saynu taariikhda ku ayno 13 dumar oo doonay laba وسيدة رسولك عليه الصلاة والسلام أنت نلا كل من كوبي تبرنا ولا أقل قال رسولك عليه الصلاة والسلام سقال يقول نولبو كرنتي لبنا هرتيبي دين رسولك عليه الصلاة والسلام عائشة أيا كترتي وح يضع إلنا وجرسد رسولك عليه الصلاة والسلام أورنتي أوردلي أبي بكر بن أبي قحافة أنت كلا أوردن قرر يعني دعوية أو سياسية أي هاي إن شاء الله تعالى حق ضمبه مركع تاريخ ذا لمشهد رسولك كل دوانا عليه الصلاة والسلام أينو رسولك أبتياشي رسولك أذي الردي رسولك هبريريه وحاسي نولشي سي دركي وحدني هيلبك وحوقش على رسولك عليه الصلاة والسلام راشنك أنت وكقادن شري سيدوسي حنشر رسولك عليه الصلاة والسلام dadkii la shaqeyn jiray sida ay kala ahaayeen fardihii uu lahaa nabigu kaleey salaatu wasalaam baqlihiisi xoolo intuu lahaa intaas oo dhan ibn al-qayyim iyo ibn sa'ad oo runtii aad uga warramay intaan isku soo ururino ayeen insha Allah taala wax ka tilmaami doono walidaalka waxa way dumarka sidoo ku guursadayna waqtigaas aynu insha Allah taala ka warrami doono laakiin xagga waqtiga tasarsulka aynu ilaalinaynayo waqtigan imika halka aynu marayno waa waqtigii uu guursaday Aisha bint Rasuulillah عائشة بنت أبي بكر بنت أبي قحافة سنة كي رنتي كوبية تملاد أول كيس وفعلا روايات كقاركود أيلين آخر كي بشي سنة كي تملاد وحلا هذا حج كي رسولك عليه الصلاة والسلام بقول يا أفري طبان كل أو سحابي رواياتك يعني السيرة آد بي وهول بضتي بقول أفري طبعا كل أو سحابي أياك قيب قال حج رسولك عليه الصلاة والسلام حتى الصحابة وحيكون كلا تجين حج كاسي ما قران بوها محج انفراديوها محج تمتعوها يعني بقول أفري طبعا كل أو سحابي بسوت تاجنا حتى لو حيكون كلا تجين حج رسولك عليه الصلاة والسلام نوعوها ولذلك وحويه حتى waxaynu ku dadaalinaa in inta muctamadka ah runtii loo badan yahay aynu soo ururino
waqtiga waxa dhacday al-Isra wal Mi'raj waa bilowgii sanadkii 11 aakhirkii sanadkii 10 rasuulka kaleey salaatu wasalaam sidaynu ognahay sanadkaasi sanadkii 10 dhamaadkiisa waa sanadkii dee murugadu ahaa Khadiija ay dhimatay Abu Talib oo dhintay Quraysh weerarka badan ay ku sameysay rasuulku Taayif oo cararay Taayif dhibaatadu ay kala soo kulantay ولذلك علماء waxay leeyihiin waxa rasuulku kaleey salaatu wasalaam loo fidiyay casuumadii bani aadam loo fidin lahaa tii ugu ballaadhneyd ayaa loo fidiyay rasuulku kaleey salaatu wasalaam waxaana runtii sanadkii 10aad aakhirkiisii dhacday al-Isra wal Mi'raj adigu riwaayad badan baa jiro qaar waxay leeyihiin sanadkii 5aad buu ahaa qaarkood waxay tilmaamaan ma rasuulku kaleey salaatu sanadkii 3aad laakiin sida mu'tamadka ibn al-Qayyim iyo أيمدي صالحين تايس سور سنة كي طبنات أيو نقنيه رسولك عليه الصلاة والسلام سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إلهي بكور رمي وحان سهل إلهي ليلمي رسول كيسه من المسجد الحرام كقاضي مسجد كحرم إلى المسجد الأقصى إلا قدس كي لنريه من آياتنا سأل آيات كيغا أصوتصنا إنه هو السميع البصير إلهي واك وحمق الله وحنا أركيه سأل وح أصوتصنا وآيات كيغا أصو أركان وقاد رسولك عليه الصلاة والسلام وقدس ماشا ما أنت يهود مالو الباقي لقحكو صنيسو هل مليار يا 400 مليون أو مسلمين أما 1 بليون يا 400 أو مسلمين أما 1 مليون يا 400 أو مليون أو مسلمين رنتي ما أنت أي أغنيا ماشي أسوي ولذلك رسولك عليه الصلاة والسلام وأنا قبلتي كواد مسلمين أو مسلمين تقبلته القدس بيا هاي مركي دمبه أي مسلمين تا لو سوريتشي كعبده والنبي عليه الصلاة والسلام قبلة إن كعبده الله قرقه ورنتي شعلا لكن مركي وريس قبلة مسلمين تو وحيا هيد قدس رنتي صلاة الله واجبي رسولك عليه الصلاة والسلام ابن القيم حلي ولا ديلمي يسقى أو تشركيسي يروح ديسيها سبحان الذي أسرى بعبده الدوم كيس ديلمي الطول مديسي يعني رسولك ما يستلم ديلمي marka ibn al-Qayyim aymada qaar baa qaba ruuxdiisu ba rasuulka la qaaday laakiin isagoo dhameystiran in la qaaday ayaa runtii ay u badiyeen jumhuurka culimadu asra bi abdi rasuulku kaleey salaatu wasalaam baytul maqdis baa la geeyay isagoo runtii yaani sifo subhanallah waa speedku waa maxay waxa baad markii satellites ka nimankan intaas oo kun oo magaratay waxaynaan garanayn ayaa ilbiriqsiga intaas oo kun oo maxay yaani qiyaasaadkooda maanta ay sheegaan ilbiriqsiga ayaa satellites ka qaar ay jarayaan bay yiraahdaan walidaalku waxa weeye markii waxa ka warabayaan inagu waxaynu xusuusanaynaa maanta inagoo u fadhino rasuulku kaleey salaatu wasalaam way rasuulku wuxuu yiri markii la soo celiyay in qudus tagay ee samo 7 sano soo maray oo aynu ka warrami doono waxaan ku soo noqday iyadoo wali gogasheedii ay kulushahay buu rasuulku kaleey salaatu wasalaam yaani gogashii aan ka toosay iyadoo sideedii u sii kulul ayaan ka yaani marka maxaad sideedii gogashii intaad ka kacday iyadoo kuleelkeedii wala dareenkeedii jiro oo ku soo noqday rasuulku kaleey salaatu wasalaam rasuulku kaleey salaatu wasalaam baytul maqdis buu tagay halkaasi anbiyada oo dhan buu nabigu kaleey salaatu wasalaam 124 oo nabi أي النبي عليه أي إلهي سبحانه وتعالى صوتنا سيد الإمام السيودي في كتابه المصباح وكشاغ وفعلا بقول يا أفري لا تنكا كل النبي صدق بقول يشن طبعا أي كم إذا هاي رسوشي لصوتنا رسالة الله صوتنا أدو أنبياء أوردن نسكو حتى المام يا أنبياء أوردن أيها الكاكتوكي النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهل يقانا قابك وتوكي يسدي يسكوي مادين إنه وين نسدا ورمينا وحصورنا وغيبيات كي علمي إلهي سبحانه وتعالى رسولك عليه الصلاة والسلام تبعت توسمة كواد بلقي مر الله عليه مركي وهالكان بيده كتكي مركان نبي الله آدم عليه السلام أيا أكل كل مي أرواح الشهداء
ruuxdii shuhadada oo midigta ayaa la tusay waxlaali wixii shuhada muslimiintu dadkii yani wanaagsanaayo dhan ay lahayn waxlaali wixii shahiidaha waxlaali wixii ruuxdii ashqiyada dadkii xumaayoo dhan ruuxdoodiina waa la tusay nabiga kaleey salaatu wasalaam oo bidixda ayaa laga tusay iyadoo nabiyullaahi aadam kaleey salaam uu kula kulmay samada koowaad samadii labaad rasuulka kaleey salaatu wasalaam ayaa lagu soo dhaweeyay iyadana yaxya بن زكريا يا عيسى عليه السلام أيا وكلكل من رسولك عليه الصلاة والسلام سبض صدحات وكلكل من رسولك عليه الصلاة والسلام نبي الله يوسف عليه السلام أو يسقنا آدي هذا وسودوي سبض أفراد وكلكل من نبي الله إدريس عليه السلام أو يسقنا آدي وسودوي رسولك عليه الصلاة والسلام سبض الشناد وكلكل من نبي الله هارون بن عمران عليه السلام سبض اللحاد وكلكل من نبي الله موسى عليه السلام سمد التضباط وحاورنتي كل من نبي الله إبراهيم عليه السلام رسولك عليه الصلاة والسلام ولذلك مركي التضباط السماء ودافي رسولك عليه الصلاة والسلام وفعلا سموين كاسي محييهين ليرس كاسي إلى هاي شيء وحاصورني قار كودنا ما أنت بني آدم كو حبوك وقاد قارنا وعلمي إلى هاي نوجيه وبني آدمكو وقرطو مركو إن يرسي جوجبه بني آدمكو وحا نصوصتو أي شيء يسو أيا وحي ير أيوكو أوغادا رسولك عليه الصلاة والسلام وكإلهي كغورهم في سورة النجم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما قوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى مركا يعني الله سبحانه وتعالى وحكور في سورة النجم ملبو قال رسولك عليه الصلاة والسلام جبريل وكجهري ولذلك هالكاسي أي النبي عليه الصلاة والسلام التحيات المباركات الصلوات لله يعني التحياتكم وصلاتي وسلامي يعني وحوي إلهي سبحانه وتعالى رسولك عليه الصلاة والسلام الله بري كلنكي وإلهي سبحانه وتعالى لسبي أي هيد التحيات كمان تعينكو التحيات سنو أنت صقور مالنتي ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام وحل سوسي هديتي وقال سني وهيد شنت صلاة أي النبي عليه الصلاة والسلام لو صوتي وفعلا رسولك عليه الصلاة والسلام أنتي ومقرتي حقا شوقي آية ضبطا أي لا تصير رسولك عليه الصلاة والسلام وحكم إذا هيد مر لبعض برسولك أوبريشن لو سمي واللي كور رمي إني سنة كي أفرشركيسي إلا قلي رسولك عليه الصلاة والسلام ورنتي وح لابتي سل الذي فيه وفعلا وحيالها ما أنت اختر هذا وين ما أنت الدنيا تشرى يوح ما أنت يعني تكنولوجيا ما أنت تشرى إنه ما أنت لما يابين وما أنت واحد يوقف كيسوا هالك يسكتشوجا أيا أدوجو جدار كاس صوفردي أيا قلين كابو صعونة عادي يسكت فردي يوقف جو عادي وشاكيني أيا رنتي ليزر مقرة تلاقوا استعماله وقلب كقفك لقيا بين هالك لقى صوت طلو شركي يسكت عادي لكن إنك وحوي أفريتهم بقولوا صلوات كهر أيها رسولك يسقوا البرقسيو إلا سبب اللقي لقسوا عليه البرقسيات أيها أوبريشن كيسلو كل حجر وفعلا رسولك عليه الصلاة والسلام شق السد قلين كلا لو سميه ورنتي لو سفيني رسولك عليه الصلاة والسلام سيدي الله قلي يوحي لقى قلي وحاصرا علم إلهي سبحانه وتعالى أي كسوين لكن ساسين كل رميننا ومر لبعض بالقلي رسولك عليه الصلاة والسلام لكن واحد ما أنت قالوا أي كفان الصم مسلمين توح ولا قرآن كويا لا إني نبارنه وعلم جيس الله دونه أي الله ينفرين إن بني آدم كوح وقبان كرا أي شيء وحلا له وحنا نصوص تينو شيء أو أي تهين لجود ذلو علم هذا لبرته أي وحصورني أي تلمامه المهم رسولك عليه الصلاة والسلام وحاله واركه وحكم ذها مالك النار ورنتي خاسين كيديها يعني مالك ملقاسي ملقا كوكيل كانارته ووجهيسو runtii uu aanu mid ninaxa aanu ahayn
ayaa la tusay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay ugu talagalay mujrimiinta oo dhan iyo cid walba oo diinta ilaahay ka fogaatay ilaahay meel ugu diyaarsaday waxaa la tusay rasuulka calayhi salaatu wasalaam dadka xoolaha agoonta cuna walidaalka waxa weeye waa faruuriyaha waxay leeyihiin geela oo kale walidaalka waxa weeye kolba dhagax intaa leeg ayaa ma garatay oo naar ah iyadoo lala hortaagan yahay oo allahumma salli ala muhammad dhagaxaasi afka loogu ridayo ayaa la tusay rasuulka calayhi salaatu wasalaam walciyaadu billaahi iyadoo laga digayo xoolaha agoonta in loo dhawaado waxaa la tusay rasuulka calayhi salaatu wasalaam akalatu riba dadka runtii ribada dulsaarka runtii dulsaarku waxa weeye waxa maanta nimankan dunida haysta ay ku shaqeeyaan maanta Mareykankii aad ogeyd يعني billions and trillions waxay naan tirin karin waxay ka sheekeeyaan mararka qaarkood waxa soo waa malaa tirooyinkaasi يعني aadar malaa taas way sameeyeen bad soo de waxay naan subhanallah يعني markay tirinayaan de يعني acdaad qaarkood tirooyinka qaarkood wax يعني ma yafuq الحسبان bani aadamka aqligiisu wuxuu qaban karo wax ka badan وفعلا way wax miyaynu tirin karayna waxay ka waramayaan bariga Wall Street-ka Mareykanka gudihiisa lacagta ay leeyihiin way khasaartay يعني 5 trilyan يعني 8 nin oo ka bida kuwa khaliijka joogo kaliya يعني lacagta ay sheegayaan oo kaliya hadda waa 8 nin oo kaliya lacagta ka khasaartay malaha يعني intaas oo kun oo sanadood muslimiinta oo dhan hadii ma garatay dunida ku nool dollar loogu qaybiyo ma garatay la isiraahdo u tiriya ay malaha ku filan lahayd يعني waxa la leeyahay hadda 8 nin oo kaliya oo ma garatay khaliijka ku وفعلا iska daaday dunidika waxa soo dhan waxa la leeyahay waxa ay ku dumeen waxa kamid ah ribada weey hadana meel allaaliyo wixii wax hantida inta leeg ilaa maanta Mareykanku haysto meel allaaliyo meel ay martay qaylada ka dhacaysa Mareykanka iyo inta shaqaale lagu waayo wax kala maaha waa ribada weey ribadu waxa weey anigoo maalqabeena ama hebel oo maalqabeena ama qof kale oo maalqabeena ayaa dadka kale hantidooda ku dul nool wasidii carabiyeenu jirtay mesela dadka masaakiinta ayaa inta lacagta ka amaahdan bay lacag bay amaahin jireen waxay jireen soo shaqee marka waa dulsaar ribada waxa loo yaqaan waa interest qofka oo wax iska saartay adigoo meel iska fadhiya ayuu doonaysaa xoolaha dadka oo dhan inta system u samaysato inaad tiraahdo adigu inaad faa'iido u gurato ribada la sheegay waa inta weey waa islaamku wuxuu yaqaanaa diin ama waa baa mushtari xalaala oo labada qof ka dhaxeeya ama waa diin qofka muslimkii markuu ku yimaado isagoo baahan rasuulku wuxuu yiri laba ajar baad leedahay mid waa ajarkii walaalka midna waa ajarkii tooga quminta diinta walidaalka waxa la yiri qofku imika dunida waxa weeye markaad bangiga tagto marka dunida haysta de ribada la sheegayo ها imsaad u baahantay gurigaaga waa caynka dadku way wada deemaysan Europe iyo Mareykan waxa loo shaqeeyaa oo nimanka dunida haysta waa group yar oo kooban oo yahuud baa dunida oo dhan u shaqeysta ninku uu shaqeynaya Mareykan Europe iyagoo ku nool wuxuu ku leeyahay 50 sanadood waxaan ku dadaalay bal guri yar iyo beer yar inaan runtii samaysto lacagta laga sheekeynay lagu leeyahay mushaar bay u qaataan iyo waxa tirama laha haddana interest ka dirteed qofku wuxuu shaqeynayaa intaas oo saacadood hadana waa cadibaya wal ciyaadu billah wadadka badankooda in yar waa inta nool ee dunida oo dhan ku dul nool laakiin dadka inta u badan ay runtii ka warrameen almuhim ribadaasi kuwaasi waxa la tusay rasuulka iyaga oo calooshoodu calool weyn oo qofka ag taala walidaalka waxa uu qofkii uu qaadi kari lahayd yani waxa uu qofkii oo calooshii masaajkan oo kale la kiisiyay oo subhanallah يعني قفكي ولا دقائق كريلاي وهؤلاء هم أكلة الربا رسولك عليه الصلاة والسلام بار الكواس وكوي يعني الربا وانا نظام كان رنتي ما انت قالوا اي كجبتي مسلمين تولر رنتي اي دبقل يعني لكن اي تهي اني اسكدايا وحالة رسولك عليه الصلاة والسلام دتكي سني ولذلك وحوي وحالة قف هلب معان وضرية أجياله dhinacna hilib qurmay oo agyaal oo hilibkii qurmay cunaya ayaa la tusay rasuulka kaleey salaatu wasalaam yani waxa way qofkii xalaashii buu ka baydhay dabta xaaraantii buu doonanay ayaa lagu yiri nabiga kaleey salaatu wasalaam waxa la tusay dumar naasahooda la sulay meel sare oo naasi ay meel ku xireen oo iyagina soo laalaada ayaa la tusay rasuulka kaleey salaatu wasalaam
rasuulku wuxuu yidhi maxay yihiin kuwani waxa la yidhi kuwaasina waa dumarka ilmihii ma garatay ilmihii ninku uu lahaa intay ka qaadaan oo ficlan dhaqan carabi ay lahayd bay ahayd yacni qof kala siinaya ama iyadoo gabadhii og in ilmahaasi dee qof kale uu leeyahay qof kala siinaya kuwa weeyi kuwa sidaa sameeya ayaa uu yidhi rasuulku calayhi salaatu waa dhaqan runtii dadkii carbeed aad iyo aad ugu badan jiray المهم رسولك عليه الصلاة والسلام وحلو سودي بمركي وصول نقول يشنت صلاة يجوا كنتنا رسولك مركو نبي الله موسى عليه السلام مرة يسمديسة أيا نبي الله موسى ولمحات ده رسول وحن سدا كنتم صلاة أو أمضي دي لقص واجبي وأنا رضو إلهي كل قبولي سيد ابن القيم وتلمامي كنتم صلاة laba salaadood baan reer bani Israa'iil ugu taagwaayay dib ugu noqo Ilaahay ka soo fudeeyay dabeetana nabigu kaleey salaatu wasalaam waa uu noqday markaas uu hadana ku soo noqday maxaad sida intaasan sida waa arkaa socon meesha dib u noqo orado hadana Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku noqo adigu rasuulku kaleey salaatu wasalaam nabiyullaahi Muuse kaleey salaam sidoo uu celcelinay shanta salaadood buu ka soo reeb dabeeto markii dambe shantana kala hadlay wiil Ilaahay baan ka xishoonay rasuulku kaleey salaatu wasalaam in runtii shantaasi aan kula noqdo walidaalika rasuulku kaleey salaatu wasalaam hadiyadii ugu weyneed ee runtii rasuulku kaleey salaatu wasalaam uu la yimid waxay ahayd shanta salaadood oo ficlan shanta salaadood salaada runtii de mar baynu ka hadli doonaa waqtigeeda leedahay ee mana aha salaadii saxaabada iyo rag ah عروة بن السبير وكله سلادين المانتا مركب من هالكن كهالله قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وحلقة يا باي المهيرة كقيلية هالكينا ترى وارتلو يا كابوسية مركبة أما موبايل كما دقائق غير مركبة أترنت لكن ده رجها عروة بن السبير صلاته كان رسولك عليه الصلاة والسلام يعني عروة لا إله هذا ولقبة لدوني لا تشرى marka tabiibkii baa yidhi waa ilaa laba dhakhtarka waa in lugta lagu jaro hadii kale cudurkaas uu fidaya diyaar baan wahay buu markii la jarayay ayuu geed yar u keenay soo geedkaas teelan inta lagu jarayo si aanad u dhaqdhaqaaqin oo aanan meel kale ku jarin waa inaad moogtay wuxuu war iska daayo salaad baan galayaa sunnada markaan lugtaan ku soo fidinaya lugta inta doonto ka gaarsiin buu intaan salaad ku jiro macaad allah an yaqiba aqli min allah lahda dadkii saalixiinta أنا وحن إلهي كما قال إن البرقس قلبي جيب إلهي سبحانه وتعالى كما قال وفعلا وعلى لقتي وصوفي هل كبا لقشرا إن شاء الله تعالى إنت سنكدين دونا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته